madaxweynuhu saddexdii sano uu joogay inuu yahay madaxweynaha kaliya ee waxa weeyaan isagoo madaxweyne ah saddexdii sanaba 2022 la doortay 23 24 oo ilaa 25 imaka aynu ku jirno intaas soo jeer farmaha tagay Cabdullaahi Farmaajo kaliya ma oran mucaaradka oo dhan baa aaminsan in inta ka maqan waana qodobkan way ku jirtay in qodobadii kale ay ka hooseeyay in wixii intii maqanba dib loogu yeero marka horta in la iskugu wada yimaado oo dawladdu inaga naga wada dhaxaysay laga wada hadlo wixii tabasha aynu heshiino waa aynu wada hadalno waxa jirtay hadal hayn marba hadii diyaaradahan la haayo kuwa kale oo ka casrisan ay yaalaan waxay tahay mushkiladda shabaab loo soo afjarlay safiiradii markii ugu horeysay ay maanta ka soo qayb galaan oo ay soo fadhiistaan oo si xaraga leh waxa weeyaan inta taandooyin loo sameeyay ay soo fadhiistaan oo si ammaan ah oo live ah aduuda daawanaysan inay daawanayaan amaba ay ku raaxaysanayaan sida shacabka Soomaaliyeed ay ku raaxaysanayaan maalmaha xorriyadda madaxweynuhu waxa weeyaan markii uu xukunka yimi 3 sano ka hor shabaab Muqdisho ayay ku shaaheeysay bakaaraha iyada iska haysatay meel kasta iyada dadka lacag kaga gureysay qaraxu meel kastaba aniga iyo adiga hadaynu nahay Ismaaciil halkan isku wareysan jirnay ayaa inagoo isu soo socono oo doonayna inaan is wareysano ayaa mid kastaba laga yaabay inuu soo dardaarmaba oo aanu warba ka hayn inuu dhiman doono iyo in la qarxin doono marka runtii horta halkii la taagnaayay imika isku mid maaha waxaanu aaminsanahay diyaarada kalena waa soo socdaan qaarna imika waa kuwan jooga dagaalka hore ugu jireen imikana qaar kale waa la gelinayaa dagaalku imikun bud moodaa in intii ugu dambeysay haraagi waa haraawayaan haraagi in la iska baraacin doono idinka Ilaahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa sayyidil anbiyaa wal mursaliin wa salaamaya dhamaan bahda Somali Cable ugu horeeyo walaalkay Ismaaciil iyo dhamaan shaqaalaha jooga xafiiska waan hambalyeynaya dhamaan inaga iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan 26 June oo ay ka soo wareegtay saa sheegtay 25 sano waxaan u jeedaa 65 sano oo 60 guuradii imaka 5 lagu daray maaha wax sahlan maantana waxaynu u dabaaldegaynay waxa weeyaan July kowdeedii ama Yuulyo sida halkan aad looga yaqaano iyada lafteedu 65 jirsatay runtii yani waxaynu oran karnaa shucuur aad u weyn buu ahaa dareenka maanta jiray ha ka soo bilaabmo 26 June oo aynu ku bilownay gobolka Banaadir xafladihii dhacayay iyo khudbadihii la jeediyay iyo sida dadku ay u diyaar garoobayeen meel kasta maalmaha xorriyadda ama maalmaha waxa weeyaan aynu oran karno usbuucii xorriyaddu waa usbuuc runtii dadka Soomaaliyeed oo dhan ku weyn waa usbuuc farxad aad ka dareemayso maaha oo kaliya dadka waaweyn ee carruurtu xitaa ay dharka soo qaadanayso calanka Soomaaliya isla markaasina aad arkayso goobaha la iskugu yimaaday ama lagu shaaheeyo ama dadku ay ku nasanayaan iyagoo ku wada jeena qaaran calanka Soomaaliya aad iyo aadna dareemayso in farxad uga muuqato marka iyadoo taasi ay jirto haddana waxaad moodaysaa sanadkan in dawladdu ay u diyaar garowday inay tii ugu muhiimsaneed ay muujiso oo ah caasimadii Soomaaliya inay amni tahay oo ay ku muujisay 26 June inuu madaxweynuhu waxa weeyaan gobolkii amba xuduntii caasimadda Muqdisho oo ka khudbadeeyay xaflada lagu sameeyay waxa weeyaan heesa waxa weeyaan cusub oo ku saabsan xorriyadda yani qaar hore la qaadi jiray laakiin qaar cusub in dib loo qaado in waxa weeyaan usbuuca dhan xorriyadda haddana gobolka Banaadir uu shaqo badan qabtay sidaynu ka warqabno guddi ayaa la saaray oo ra'iisul wasaaruhu magacaabay guddida waxa gudoomiye ka ahaa Cali Xoosh oo ah wasiirka arrimaha gudaha maareeye iyo wasiirka beeraha waxa weeyaan wasiirka xigeenka warfaafinta al-Cadaala oo guddi isku dhafan oo wasiir leh oo madaxtooyadu ku jirto oo gobolka Banaadir uu ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku jiro xitaa fadhiisan jiray shirarka guddidaas marka guddidaasi sidii sanadihii horeba doorkan waxaad moodaysaa inay wax ka duwan wixii hore ay soo bandhigtay ta ugu muhiimsan waxay ahayd maanta inaynu daawanaynay dhammaan ciidamada qaranka amba hareemacad ha noqdaan amba qaranka ha noqdaan amba militariga ha noqdaan ama ha noqdaan booliska asluubta inay dhammaantood soo wada bandhigeen ciyaar qurux badan waxa weeyaan ay gaardiyeen wadada dheer ee waxa weeyaan daljirka hormarta
madaxweynuhuna uu halkaa uu kaga waxa weeyaan qaadanayay oo uu arkayay sida wanaagsan ay waxa weeyaan u gaardinayaan ciidamadaasi waxa kale oo lagu soo bandhigay dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo iyaguna meesha marayay waxa lagu soo bandhigay geeli aynu sumada u lahayn oo calankii Soomaaliya la hubiyay diyaaradaha ayaa la socday helicopterada ah ee calamada iyo waxyaalaha kale ee wanaagsan daadinayay runtii ididiilada weyn iyo higsigaasi ma higsi imika iska yimi 3 sano ee madaxweynuhu uu joogay waa wax dhamaaday waana ugu muhiimsan waana fariin ay maanta dareemayeen safiiradii markii ugu horeysay ay maanta ka soo qayb galaan oo ay soo fadhiistaan oo si xaraga leh waxa weeyaan inta taandooyin loo sameeyay ay soo fadhiistaan oo si ammaan ah oo live ah aduuda daawanaysan inay daawanayaan amaba ay ku raaxaysanayaan sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu raaxaysanayaan maalmaha xorriyadda afeene aad buu bandhiga u qurux badnaa dhanka militariga iyo waliba ciidamada kala duwan iyo diyaaradaha iyo gaadiidka marka la eego waxa jirtay hadal hayn marba hadii diyaaradahan la haayo kuwa kale oo ka casrisan ay yaalaan waxay tahay mushkiladda shabaab loo soo afjarlay ama argagixisada in runtii shabaab la dagaalamaya ma aha wax runtii la oran karo sanad iyo 2 sano iyo 3 sano iyo waa lagu soo afjari karaa waa wax sahlan ma aha sidoo ka warqabno madaxweynuhu waxa weeyaan markii uu xukunka yimi 3 sano ka hor shabaab muqdisho ayay ku shaaheeysay bakaaraha iyada iska haysatay meel kasta iyada dadka lacagta kaga gureysay qaraxu meel kastaba aniga iyo adiga hadaynu nahay Ismaaciil halkan isku wareysan jirnay ayaa inagoo isu soo socono oo doonayna inaan is wareysano ayaa mid kastaba laga yaabay inuu soo dardaarmaba oo aanu warba ka hayn inuu dhiman doono iyo in la qarxin doono marka runtii horta halkii la taagnaayo imika isku mid maaha maanta wata daljirkii dahsoon waxa weeyaan lagu sameeyay maanta amniga iyo lagu xaragoonayay inay cid kastaba ay markaasi ay timaado marka runtii wax badan ayaa la qabtay 3 sano shabaab waxayna tusinaysaa shabaab inay waxa weeyaan aad loo wiiqay waxayna tusinaysaa ammaanka in Muqdisho halku gaaray oo ah in ummadii ay in wada daawanayso iyadoo ammaan lagu wada nool yahay oo waxa weeyaan 5 sano kadib 26 June iyo 1 Yuuliyaba loo dabaaldegayo عاصمة وأمني مدين كده ولا دريمي مدحينها مرو قطبية حلي هرا دجال كلا جري جري وحيري إن شباب سنة إلا بس سنة جدود إن لو صار أفجار دون ودود دي سحوق يسار دون دجال على صار جلو سراكيل بدنا يكون إنتاني تريال هذا نقول واحد مدة إيمك وحسن حسن شيخ محمود مدحينها دال كمر كذا إكتو صورة جل لماذا الشباب إن لا إركتره أنت إنه جرتها horta rajadu ma xuma mar hadii sidaan ku sheegayo 5% dhulul ay haysteen laga weeqay dhowr kun laga dilay 3 sano anigu waxaan aaminsanahay dad badan ay ila aaminsan yihiin in shabaab ay aad iyo aad u iltaad dareeyeen dadka la dagaalamay ma aha dawladda kaliya shacabkii Soomaaliyeed baa la tusay inay yihiin humaag awoodun waxa weeyaan isbidaya laakiin aan waxba islahayn taasina waxay cadeynaysaa in maanta saxafiyiintii Muqdisho dhex fadhiyay ambaba Soomaaliya kala joogay intay soo istaagaan ay shabaabkii ay sheegayaan meelaha laga qabsaday nin saxafi isku muudii jirin inuu arimaha ka hadlo in maanta dawladdu meel kasta ay gaari karto oo baabuurta intay qaadato ilaa iyo beledweyne ay gawadhida u qaadan karto in waxa weeyaan amaankii la sugay oo kaliya maaha xamar meelihii ay haysteen oo dhan wax badan laga celiyay waa laga yaabaa in marka qaarkood iyagoo isqarxinaya ay meelaha qaarkood soo yar gaadhaan laakiin awoodoodii faraha badnayd ee isbidi jireen runtii aad baa loo wiiqay taana waa laga wada marxaati furaya waxaana maanta ka marxaati furaysa maanta aynu joogno 1 Yuuliyo oo ka soo wareegtay 65 sano kadib in maanta sida xaragada leh lagu gaardiyo Muqdisho waa waxyaalaha tusinaya adduunka oo dhan in wax weeyaan Muqdisho ay nabad tahay waa waxyaalaha tusinaya maanta marka safiiradiyo daawanaya inay Muqdisho amaan tahay oo waxyaalaha tusinaya inay noo soo hambaliyayaan adduunkii oo dhani oo safiiradii maanta ay fadhiyeen ay u hambaliyeen madaxweynaha oo ay lahaayeen waxa weeyaan amaankii iyo nimcadii Soomaaliya waa soo noqotay way dagaalka maxaa ka qorshaysan shabaab lagu jiro dagaalka qorshihii horun baa taagan qorshihii hore ee madaxweynuhu uu tilmaamay ilaa iyo haddana uu ku taagan yahay horta waa inaynu isla qirnaa
dadka shacabka Soomaaliyeedna way daawanayaan waana ay markhaati furi doonaan madaxweynuhu 3 sano uu joogay inuu yahay madaxweynaha kaliya ee waxa weeyaan isagoo madaxweyne ah 3 sanaba 2022 la doortay 23 24 oo ilaa 25 imaka aynu ku jirno intaas soo jeer farmaha tagay waxa weeyaan shabaab marka qorshihii markii hore uu dhigay ee ahaa in dhaqaalahooda la curyaamiyo oo bunuugta iyo akoonada ay leeyihiin laga wada xirxiro oo dhaqaalaha laga curyaamiyo in si toos ah loola dagaalamo iyadoo shacabka la adeegsanayo oo macawisleyda iyo ummadda kale ee waxa weeyaan doonaysa inay humaagan iyo ay iska dulqaado iyo waxa weeyaan dulligan iyo tasaddexaad oo ah in diinta xagga diinta in waxa weeyaan culimadu ay kacaan oo ay hadlaan meel wanaagsanna runtii way maraysaa culimadii waa kuwa intaas oo shir qabsaday waa kuwa tii ay waxa weeyaan dadkii ay waaniyeen una sheegeen inay yihiin argagixiso dadka dhiigooda banaysanaysa marka qorshihii markii horeba la degayba 3 sano ka hor ayaa ilaa iyo hadda jira waana lagu soconaya ilaa iyo inta la waayayo maaha oo kaliya shabaab argagixiso oo dhan ama daacish iyo shabaab diyaaradaha ma la isticmaalo dagaalka ma loo isticmaalaa taageeradii dhanka kale beesha caalamka oo Mareykanka iyo Turkiga ugu horeeyeen ee dagaalka dib ma loo soo celiyay iyagoo hakadanaya la ogaa in hakad ma jiro oo markastaba de wax weeyaan waa aad iyo aad bay dawladdu runtii ugu mahadnaqaysaa dhammaan maaha oo kaliya waxa weeyaan Mareykan iyo Turkiga dhammaan cid kasta oo naga saaciday la dagaalanka argagixisada ama Muqdisho lafteeda xasilinteeda ka qayb qaadatay cid kasta oo waxa weeyaan walaalo inala ah oo saaxiib inala ah oo inaga saacidaysa inaynu humaaga iska hor qaadno waxa weeyaan dawladdu way u mahadnaqaysaa marka waxaanu aaminsanahay diyaarada kalena waa soo socdaan qaarna imika waa kuwan jooga dagaalka hore ugu jireen imikana qaar kale waa la gelinayaa dagaalku imikun buu moodaa in intii ugu dambeysay haraagi waa haraawayaan haraagi in la iska baraacin doono idinka Ilaahay way shirkii mucaaradka madaxdii hore dalka ay ku jiraan goobjoog ayaa ka ahayd oo marad ka warbixisay 3 bisha ayaa lagu balansan yahay waxa la sheegay in doorasho wadar ogol ah oo midan tooska ah bal markaan in la tijaabin doono midkan 3 bisha lagu balansan yahay maxuu ku soo dhamaan karaa inkastoo rajo badan dadka qaarkood aysan ka qabin oo siyaasiyiinta ah adu maxaa ku muuqda in horta waa inaynu horta marka ugu horeysa aynu dhowr qodob horta aynu cadeyno madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka waana madaxweynihii loo doortay 4 sano baarlamaanku waa baarlamaankii qaranka waxna loo doortay 4 sano ولينا ما نريدكودي وهيستا هرتا وإنا هرتا قطب كاس هرتا وإنا عدادا لكن أرنتا يعني معارضكو أي مركز تبع أي هذا الهيين هنقضان معارض كي وحوي أنا مدحدي هورا يو سياسيين تي هورا يو مسؤولي هورا أما بهنقضان معارض كلا يجلفتودو أن أودو ده وحوي أنا الحقير كرين أحساب تسميستي وردا سميستي يجلفتودو دون إني سياسة دي كقيب قلان لبده جروب هذي لسكدره madaxweynuhu isagoo madaxweynaha isagoo mandatekiisa haysta hadana in aragtida ka duwan inuu dhageysto laba shir buu qabtay shirna waa shirkii intuu ku baaqay loo yimi shirna waa shirkii kale ee intii iman weyday hadana si gaar ah uu la kulmay madaxtooyada lagu qabtay marka horta arintaas waxay cadeynaysaa madaxweynuhu ma aha oo kaliya inuu madaxweyne yahay inuu waayeelnimo waxa weeyaan uu wado uu doonayo inuu ummadda isu keeno ummadda uu tuso wuxuu wadaa inay tahay qarankii iyo dantii qaranka marka in ha noqoto doorasho umbad qodobka ayad ku balaarisay laakiin waxa kamid ah qabiyatirkii dastuurka in laga wada hadlo waxa ay ka tabanayaan inay miiska soo dhigaan in laga wada hadlo midnimadii oo iyada lafteedu ta ugu muhiimsan ee ugu horeysaba ay tahay qodobada uu ka duulay madaxweynuhu markii uu yimi kursigiisa xamjeeda uu yimi sudada xukunka uu yimi kursiga uu yimi waxa weyn qodobadii uu ka duulayay baa ahayd inuu soo celinayo marka midnimada la dagaalanka argagixisada qabiyatirka dastuurka iyo doorasho waxa weeyaan dadban waa la isku wada waafaqsan yahay in laga tago laakiin waxa laga yaabaa inuu midmadow ku jiro waxa weeyaan sidee baa loo qabanaya marka gudi doorasho waa la sameeyay baarlamaanka ansixiyay dastuurkii waa tii qodobo la isku waafaqay ee laga dooday markii ugu horeysay madashii ugu horeysay waxay soo bandhigtay in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen laga dhigo laakiin baarlamaankii ayaa bedelay oo yiri waxa weeyaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo waliba dood badani ay ka jirtay marka runtii waxaan anigu aaminsanahay hadiiba madaxweynuhu uu doonayo ama qorshihiisa
siyaasadeed uu ku ololeynayay markii hore in doorasho dadban laga baxayo oo doorashada buulka hoostiisa la isla gelayo ee humaaga ah ee afarta qof intay afkaysa saaraan aan la garanahay wax ka soo baxaya dadkuna ay leeyihiin nama matalo mar hadiiba laga baxayo mucaaradkan laftooduna ay saa aaminsan yihiin waxa la isku hayaaba inay tahay wax yaroo fudud oo ay tahay in lagaga baxsan karo in la isu yimaado oo la wada hadlo wada hadalna lagu dhameeyo muddo kororsi waxa uu weyn laga carreeyay tahay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii talada kaga horreeyay xasan sheekh maxamuud isagu war-saxaafadeed uu soo saaray wuxuu sheegay in shirkaasi Jubbaland iyo Puntland ay qayb ka ahaadaan oo loo yeero lala fariista oo dowladda federaalka dowladda dhexe qayb ka ah tabashooyinkoodana la dhageysta dastuurkana kii 2012 uu yahay midka la isku waafaqsan yahay horta mid baa horta muhiima inaynu ogaano in su-aasha aad markaa doonayso inaad weydiiso soo maaha in lagu noqdo un tii hore waxa weeyaan madaxweynuhu saxaafeedku soo saaray maxamed cabdullaahi farmaajo sidee kula muuqdaa oo Jubbaland iyo Puntland ayuu u hadlay uu yiri in shirki ka soo qayb galaan oo dowladda dhexe qayb ka ah dastuurkana sidiisaba uu yahay midkii 2012 la galay in la dejiyay ka in la isku raacsan yahay oo Soomaaliya heshiis ay ku tahay midka labada qodob midna dowlad goboleedyadaasi Jubbaland iyo Puntland in loo yeero la fariisto waan fahmay waxa horta mid baa jirta in mid weyn oo isla qirno maxay cabdullaahi farmaajo kaliya ma oran mucaaradka oo dhan baa aaminsan in inta ka maqan waana qodobkan way ku jirtay in qodobadii kale ka hooseeyay in wixii intii maqanba dib loogu yeero marka horta in la iskugu wada yimaado oo dawladdu inaga naga wada dhaxaysaay laga wada hadlo wixii tabasho ah aynu heshiino waa aynu wada hadalno marka horta in la wada hadlo madaxweynuhu waa ta uu ka duulayo waana ta uu mar kastaba ugu baaqayo inay wada yimaadaan laakiin maxay cabdullaahi farmaajo kaliya maaha dhammaan intii mucaaradka ahay oo dhanba waxay aaminsan yihiin in dastuurka laga wada hadlo qodobkani waa ku jiray laakiin mid baa muhiima in la isla qiro ta muhiimkii waxa weeyaan wixii sharciga waa sharci dastuurka markii la qabiyo tirayay dariiqii loo maray miyuu qaldan yahay waa intaa la isweydiiya su-aasha waa in la isweydiiyaa hadduu qaldan yahay halkuu ka qaldan yahay haddiiba qayb la dhammaystiray oo dhammaanteedna aynu ku wada ballan qaadnay in la dhammaystiro dastuurka oo qayb la dhammaystiray qaabka loo dhammaystiray waxbaa ka qaldan su-aalaha la isweydiinayo bay ka mid tahay laakiin kii 12 ha lagu noqdo iyo kii 13 ha lagu noqdo iyo kii 10 ha lagu noqdo sheekadu ma taagna waxay taagan tahay wixii ummadan u dana in dhammaan siyaasiyiintuna ay diyaar u yihiin inay ka wada hadlaan madaxweynuhuna waaba tii markii ugu horeysaba uu ku baaqiba laakiin in Jubbaland iyo Puntland iyagu aysan goobjoog u ahayn ayraahday aysan dastuurkaas dib u eegista lagu sameeyay in raalli aysan ka ahayn oo doodo iyo tabashooyin badan ay ka qabeen ayaa la iftiimiyay Puntland laakiin Jubbaland waa joogtay aad baad u mahadsantahay waqtiga ayaa naga ilaaday Jubbaland way saxeexday internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank